لحيري بهابون حناني ديري قلين لحيري بهابون marina jidkii baaburta saanku absado ogtaa wadadan damba waan uga kiciye maxaan ku siiyaa hiraabtu waji furnaantii maamilihiidii makiidhii dhibaato badani ma jirto maxaan ku siiyaa adlay qudaartiba geeka xitaan fay lahayna oo maxaa ka siya khudradda eed ku aragtay ma aragahayto wadadu meeba ingnakiin fiiriba mooskan siingnaki haa waa run suuqii baan awoodi waayay inaan taga saaka waaba shaqa badanaaytay suuq me koo baaji geeka waxba kaa qarsan maayee xaajigii baan beryahan isku yara maandhaafsannahay arrimaha ganacsiga bismillaahi raxmaani raxiim lama qof iska fayla bahaay tanama hesan dhagalay dhibaato badani ma jirto waannu iska heshiin doonnaa alla magaalka soomaalida dagaasho ma dhammaado maya cabdinoocaas maaha waa nin dulqaad badan wuxuu ii diidan yahay waddada aan ku ganacsanayo isma dagaalsanin haa saas mii erto marmarka magaalka hajingaska kaayan ogtaa laakiin waa in dej yeelay taase waa runtaa ganacsiga dumarka umaba oggola wayba dhiyaasan tusuka era anii fadaase mase ganacsiga maasha allah ii soo dhowow hodane aan daawada quruxdaade inankayga faysal baa iiga kaa sheekeeyey haa saynab anigaba isaga ii kii sheekeeyey adigii walaala yaasimiin inaad dad wanaagsan tihiin maasha allah faysalow hooyo hodad dharkay xidhantay xataa way ku qurxoon tahay haye inaanu qadayno sow maa hodaney adigoo aan noo iman ayaannu ku jeclay inan wanaagsan baad tahay malaha faysalow dawaad iga badbaday sidii ammaanaysay waxaan kugu jeclaaday un baan u sheegay hooye iyo yaasmiin hodan wada mashquul baad noqotay inay qadada haylaabina horta yaasimiin aan kaaga mahad celiyo kharashka arooskeed naga bixisay faysalna wuu ii sheegay inaad tahay qof deeqsiyada haa inan kaloo quray la dhalato xil baysa saartay aad baad wax noo siisay aniguna aad baan ugu faraxsanay waxaadna tartay waa run arrimuhuse way yar adag yihiinoo sug yaasmiinay arrimahani maanta maaha maalintii laysku soo qaadi lahaa maanta waa maalinta adiga iyo hooyo aad hodan baran lahaydeen sow maaha waa runtii inankayga inantayda aad baan ugu kalsoonahay ganacsigay haystana aad bay igu wanaagsan tahay yaasmiinay marka cidceeddu qabowdo kaxee hodanoo u soo yimid dharkii arooska aad baad u mahadsan tahay saynab aniga waxay ila tahay hodaney inay waalidkaa jeclaan lahaayeen inay kharashkaa kaa bixiyaan miyaanay ahayn yaa madbaxa ku jira waa aniga qadadii imika saaraya waa qada maxay qadadaad xilligan ii wadaan waa qadadaynu cuni layn oo carruurtiina xilligan may qadin soo maaha maya carruurtii gurigii walaashay faysay tegeenoo ay ka soo qadeeyeen imikana madrasadii bay tegeen annaga ayaa baragnay carruurta ma faysaa dhashay way iga su'aale dee maya miyaanay walaashay ahayn hadday soo qadaysiiso anuu shaqadan ku soo habsaamaye anigu waxaanaad ka sheekaynaysa waxba ka garan maayee qadada intee in leg baad ku diyaarinaysaa maryanay imika macnahaagu waa sideen sidani ma nololba ma saacadda intaa leeg ayaan sugaa qadadan yaran macnaha lahayn waar bal shaydaanka iska naar xilligaa ciddaan dabka ugu jiraa waa adige midhkaas aniga iguma jirtid iskaga soo bax imika haddaad jeceshahay cabdiyow sidaas ha u hadlin maalmahan meel kalead u jeedaaye meel aan u jeedaana ma jirto laakiin imika wixii ka dambeeya waxaan meelaha ka raadsan gabadh aan qabi karo adiguna ganacsigaaga iska sii wado qadadaadana dooni maayo cirka gee waa arriyo gabadhaasana weerarin waar cabdiyow oo makaa dhabbaa ahlan wasahlan soo dhowaada waa dharkii dumarkoo dhammaystiran mahadsanid walaal dharka arooska dumarkii kala duwanna tus kuwaa caddaankaa hodanay soo maahan yaasmin dharka noocyadu hayeeni koorta hayna wada tuso walaal dharka arooska kuwa kala duwan soo qabo kuwani waa kuwii cusbaa aanu iminka keennay kuwan kalena way noo yaalleen waxba kuma kala duwana hodaney kuwa hore umaad qaadatid way kala dembeeyeenuun labaduba way qurux badan yihiin tukaalow maadaa xidhan dharka dee kuwa cusub naga iibi hodanay balkan eeg kuwa dambe way qurux badan yihiin walaal kan waa imisa inantu waabay iyar karahsantii aynu dayno kay doynayso
anigu kuwanoo dhan lama badhacsaniba kuwaa kala keenaan eege kuwa cusubi way ka qaalisan yihiin uune duntoodu waa isku mid kuwan 4 cisho ka hor uun baanu keennee kuwa hore way ka lacag badan yihiin haa kuwama marka hore maadna tustid midabkaa caddaankaa sida u talan ayay la wanaagsan arooska u xidho eeg hadda yaasmiinay eeg ma muraadan soo eeg lacagtuunbaa ila badane ma xuma lacagtu waxba maahee waa arooskii walaalka maxaad ku hadlaysaa ma faysal baa dharka xidhanaya anigiyo faysal imika mana kuu kala duwanahayba duruucdan iyo cadarradani waa kuwii dambe bal eega haa kuwan baan ka helay 3 kala midaba soo qaba cadarrada sax kaliya mid kalan qaadanaya hodan maadaama aad faysal isku barateen jaamacaddu ganacsiga ka dhiganayo adiguna waxaad ka heshaa ganacsiga maya anigu ganacsiga kama shaqaynayo waxaan ahaanayaa guri joog waayo waayadeed hawsha oo dhan ninkayga ayaan u daynayaa inuu qabto halow nasaafiyey na walaalay baldhegtays qabo haddeer baaba niyadda kuga hayey gurigaan joogo waxaan fiirsanahay hadha filinkaad jeclayd walaalay igraane cimridheeri ayaad ii saadinaysaa waxaase ku weydiiyo biligu makiyaad igala saacidadhayba nahedha walaalay gurigaaban jeel iskaga dhigo filinkaan iska fiirsanahaye bisinka walaalay miyaad xanuunsanaysaa xanuun ma jidhee xaaladaan deganayn oo idha ma belaa jidha walaalay bale aanan dhigin ma jidho baayoy baya waxaan ku weydiiyey ma dabadiibaad shirqowdayaa maadsaan wax noogu sheegti nahedha islaantiinoo hooyadahayd baa nin ganacsadaa la ballantay anaa kuu sheegahaye kabacdina soo ma aanan kala kicin oo anigu ma tegin ballantii odaygiina kuma dhihin maxaad ka rabtaa hooyaday walaalay maxaa ku qaatay heedha ma waarata ma adigaa caadi oo odayga afkaaga ka weydiiye su-aasha nahedha horta walaalay anigu waxbi isma lahayn hedha hooyaday wuxuu odaygu ka raba weydii uun baan islahaa walaalay waxaanu fudeeda xilligaad yeelataabaan anigu garan lahaa ma hooyadeena yaad ka xanaajisay walaalay siday igu carootay maba la sheegi karahaayo igraane ma hooyada bad ka xanaaj oo aad og tahay hedha dhibkay korrimadeeni ka soo martay xitaa waxa igu tiri kuma maalgelin lahayo dukaankii ganacsigii aad doonahayey inay 50% ay bixiso kotankana baanku uuna amaahiyo walaalaya deeqligaagu waa sidee ma intaad hooyadan ka xanaajisay ayaa haddana ganacsi ka hadlaysa nahedha walaalay ma waalan tahay oo maxaan uga hadli waayey fikirka ugu weyn nolosheeda waaba ganacsiye nahedha hooyaha murahda qaadka maxaa ku geliyey horta walaalay waa raalli geliyey waxay xataa igu khasabtay hedha odaygii inaan ku dhahdo adeerow raalli ahaw allayle hooyadan waa ku qumanay raalligelinta odayga inay kugu qasabto walaalay walaalay filinkii baa badi dhaafisay nabaday hooyaa ii soo gashee hooyoy ma wacan tahay maa fiicana tiifiga iga dami hooyoy dee walaashay saafi baan la hadlaayey inaad iga carootayna waaban u sheegay iyadaaba haddeer igu xanaaqday qaladkii aad gashay baad sheegsheegaysay soo maahan saafina soo kuumay sheegin aad gaftay hooyoy adigiyo jaamacba waanigiidi raalli geliye haddeer soo ima saamixin waayahay dib ha u samayn khaladkii aad gashay oo kale haddii kale xidhiirkeenna ayay dhaawacaysaaye ogow alla hooyoy waa mahadsan tahay haddeer soo dukaankii ii maalgelin maysid oo kaalay ma ganacsigaagaad ii sasabaysay maya hooyo ganacsigu waa ii muhiim inaad 50% aad ii maalgeliso qoladii dharka ii soo diri lahayd baan xidhiirno haddeer way isugu haayaan marka anigaad maalgelin iga sugaysaa miyaa haa hooyoy waad og tahay inaan haddeer cid kalena ii maalgelinahayn baankana adiga la'aanta aanu waxba aniga amaahinahayn horta raaligelinta waan kaa aqbalay arrintan maalgelintana waan eegi doonaaye soo xidh albaabka waan sii soconayaa hooyoy haddeer islaanta waaba iska baxdayba bismillaahi raxmaani raxiim bismillaah waar waa iyo ma adigaa yaasmin walaal maxaa ku helay ish ahey waxaan nagu dhacay waa max ahey yaasmiin hooyo maxaa ku helay miyaydaan adiyo hodan wakhti wanaagsan suuqii ku soo wada qaadan maxaa khaldan walaal hooyo adigiyo faysal waa ogtihiin in khasaare badan iga soo gaadhay doontii degtay waan ogahaye maxaa hooyo imika soo kordhay waxaad soo jeediseen inaan kharashka dharka hodanaan bixiyo walaal inaad arooska naga caawiso soo may ahayn ma ka fikirteen waxaan u heli karayay hodan horta hodantii meeday xaafadoodii bay tagtay laakiin hooyo dhar wada cusub iyo cadarro qaaliya bay codsatay walaal aroosku waa wax mar keliya dhacayee ood u soo iibisay soo maha dooqeedii anigu waxaan doonayaa intaan noolahay inaan arko faysaloo guursaday hooyo caafimaad iyo cimri dherer ilaahay ha ku siiyo
faysal hooyo ilaahay hadaaye iminka sidii hore maaha. maxaad uga jeedaa sidii hore maaha? inankaygiiyo xanuun aan laguu sheegin ayaan la bukaayo. xanuun sidee ah? hooyo waa burooyine waxaase doonayay intaan noolahay inaan arko adiga oo reer yeeshay waxna dhalay hooyo. xanuunkan layga qariyey ma burooyinkii ka sarkaa? yaasin maxaad arrintan iiga qarisay? aabba maalin walba waad iga soo hormartaay iyo warran maanta wejigaaga ma fiicnee maxaa ku helay ma hawshaadii ganacsi ayaa ku hagaagi waysay? aabbo waa intaad gabowday intan kaa soo hormarayaa iska warran ma ii fiican tahay ka warran aabba shaqadaadina? aabba waa shaqo daal badan waxayse ii dhaantaa camal la'aanta. insha allah maruun baad nasan aabbow marka aan ganacsiga bilaabo anaa fadhiga kugu biili doona. ka warran aabba adiguna hawlahaagii ganacsiga aad bilaabaysay ma kuu dhammaysay hooyadaa maalgelintii ay ku samaynaysay? aabbo hooyo waa ii carraysan tahay khalad baan sameeyey. maxaad hallaysay aabbo oo hooyadaa ka cadhaysiiyey ganacsigii ma kaala noqotay kolkaa? aabbo waxaan eryay nin aan ka shakiyey inuu doonahayo inuu hooyo guursado iyana waa iigu xanaaqday. yaa oo hooyadaa ma inay mar dambe guursatay doonaysaa? aabbow hooyo waa raalligeliyey ninkiina waxay igu khasabtay inaan raalligeliyo haddeer hooyo weli way xanaaqsan tahay. maxaa dhacay markaa? aabbow mana hubo inay i maalgelin doonto ganacsigayga cadhadeeda darteed. aabbow halkeed u aamustay eed u fikiraysaa ima maqlaysid waxaan leeyahaybe. ma fakarayna aabbo markaa maxaad yeeshay? dee baleeg aabbow inaanad maqlaynin waxii aan ku dhahay oo dhan waabay ku dhaafeene. maalgashigaagii maxay ka yeeshay markaa aabbo? aabbow maxaa iska kaa beddelay ee aad la maqan tahay eed la fikiraysaa sawdigii caadigaha haddeer? aabba haddii ay mar labaad doonayso hooyadaa inay guursato ma laga yaabaa inay fursad labaad i siiso si aan isugu noqonno oo reer u dhaqanno? weliba in la xoojiyo si xeel dheer loo fahmo xarumaha ganacsigooda xanaaniyo dhiirigelin la xeeriyaba habboon xanaaniyo dhiirigelin la xeeriyaba habboon